السلام عليكم كولبا ألف باتا A B C D 1 2 3 وأنا وافرتون ما نعصب أركت عصب كسر وجرال كيجا هذا كاش فيديو كان لايك يتابو رأي هدارتنا دي بتد كومنت كوسو خور أركت سان عمل هدارتي سبسكرايب كليك كسي ما أنت فيديو جو كسب سينيا عن تكرس يا إلى التالي عن طبعا كرنا إنساني شيء وتيك توك عن كسو قاطع دين كنا إصوت تاجريو أنا نيد دميو قرش كاني بدبادية مركية ما أنت نعيلا يابنا baatigan waxaan umaleynaa gabasaar inuu yahay koodhaha gabasaar maaha waa dirac tolneen waaye because sibuu shout out to my abo ku jeclahay because waa kaas hamaan kasta baati cusub baan iska hartaa abo gabasaar ha ii ahaado dirac ha ii ahaado waa itiiris ilaahay ku tiiri aba I love you and I miss you ano bilowd maanta raashin lagu qasaari kara ma aha adeegiisa wuu dhan yahay waxa u baahan tahay toon waxa u baahan tahay batarka cusbada leheen soy sauce kan macaan caanaha rabta isticmaal for buluuga isticmaal waa kaasiyaas caateen way meeshan qofne paprika waa barbarooni la qalajiyay maraq digaag hilib fridge kala soo baxay baradhada waxa la isaas markay tahay iska tuura caloosh le ku tuuri karaano hadii la jirnaa waa la jirnaa waa qorantahay see cunto u tuura Soomaali buu cuni jirnaa dibadda ma ku kibraysiin waa fiiqday baradhadii yaa fiiqo hadaad garanayso sida loo fiiqo mashiinkaas yar soo galo dhowr xabaan fiiqday saasay igu ekaatay waan soo dhaqanayaa then waan kala yareenayaa macnaha waa jarjarayaa sababtoo biyaha dhowda markaa ku shubto dhaqsiya ii kareen laakiin asoo weyn hadaad saarato dhaqsi ma kareyso saas camal u jarjaro kasi yaryaree hadaa rabtid waa la jijibinayaa mugt digsigaygaan ku shubtay mar labaad dhaqi doonaa digsigaan saartay biyo karkaraayo oo katalka aan ku shubanayaa daarta jalmad biyo ku shub sii karkarso say dhaqso waxa dhan ku karkarsamaa noo abaayo waqtigaas ka dhuminin meel kasta wax saar ma fahanti inta ii sii karkarsamayso waxaan soo qaatay pancake butter cad aan ku darsadaa daa butter rabin saliid isticmaal aniga recipe-ga gabadha aan ka soo arkay aan isticmaalo aan fahantay gaaladan saliidda way yarayaan butter leh wax kasta butter basasha waan iga hilmaamay 2 xabo basal si yar u soo jartay waa ka si yar kartaa hadaa rabtid basal gaduuda isticmaal waa cadaan waa isticmaal kartaa ayada cadaan isticmaalowsaa dan toontii shiineed hal qaando dharra ku siistay fahanta carfta sala galwaa ayada tan camal isticmaasho amanayna ma aqaan video waan soo saaray daawada hilibkii oo suqaarka microwave-ka galiidaas waa xoogaas uu egyahay la yaabina because barfu ahaata ma igu socday waan ku shubtay hilibka badana waxa isticmaalaa top side beef kan loogu talagalay steak-ga because dhaqsiyo maaragtay karsamaa waa isku shiilaya biyuhu uu dhalo maaragtay aan ku karnaya maraq digaaga hadda ku darsada daarta cusub ku darso paprikadii aan ka dabageeyay mujida biyu dhalooya very soft way dhanka hilibkan wax badan mu baahanayo steak-ga laga sameeyaa waxa laga sameeyaa suqaarka whatever you want fancy top side beef isku milay hadda waxa ku daroyaa soy sauce-kan sweet way so dhanaan badan ma lahanayo saasay wixii ugu soo baxeen maraq yar ku sii deystan fancy sida abaayada ay sameynaysa amal maraqa baradhada hadhoodii dhufuq inuu ku noqdo then halkaasa baashaan ku ekeenooyaa baradhadeedii ii karsamtay waatana biyahan kamiira saasay u jilceen mujidido dhag biyaan ka soo meeray dabkaan soo saartay hadda waxaan soo qaadanayaa whisk waa jijibinaa ma fahanti mooye hadaa haysta mooye isticmaal waxa rabta isticmaal jikada markaa ku jirta freestyle la waxa aragtid isticmaal ultimate wax wanaagsan laga rabaa oo la cuni karo saasa u burburiyay maraq digaaga hadda wax yar ku darsanooyaa haska badanin maadaama suugadii ee ku leedahay maraq digaag macnaha hilibka ka wada caanaha ku darsaday caanaha waxay ka saacidaysaa inay zaid u milmato oo smooth ee noqoto aniga markaan karsanayo baradhada even evaporated milk ku daraa caana booraha caanaha camal laakiin gabadha ma ku darsanin cheese ku darsada ayada cheese ma ku darsanin because see u cuni karaa mashed potato without cheese I don't know ayada ma ku darsanin baana ku darsada saasay aga kaatay qofkan koobaad waxaan u baxsanaynaa Sabriin waxay tiri assalaamu calaykum walaal gang waxaan ahay qof ku daawanaya muddo 6 sano waxaan ku dhihi lahaa hore u sii soco waana ku jeclahay jazaakallahu khair abaayo dhibaatada ay haysato waxay tahay hooyo cusub baan ahay cunugteedu waxay jirtaa sanad hadda sanadkaas ee ayada joogto ninkeyga sidii horeyta ima aha oo ima damco
awal wuxuu ahaa nin damac badan saa cunugta u dhala laakiin kala gacayl iyo damac kama arko ma aqaano waxa bedelay ma aragtideeda isbedeshay baa bedeshay abaa ila tali sidee ninkeyga kusoo jiitaa maxaan sameeyaa talada waa dhankiina ila soo taliya walaalgaan abaa horta ilaahay culeyska ha kaa qaado qalbigana ha kuu qaboojiyo dhankeyga tala haddaa kaa siiyo horta qofka mala hadashay xaajigaaga ma fadhiisisay ma tiri baby what's going on isbedelkaa maxaa keenay maxaa ani adi waxaan isku ogeen haddii nimcada dhacdo xataa inaa ila soo laalaabayso laastig igu dhijinayso heerkaasna sheekadii ma gaarin isbedelka maa keenay inaa isbedesho qofkii waa inaa la sheekeysatid maho sheekale wax lagu keeni karaa haddaa qofka la sheekeysanin ma ogaa kartid isbedelka siduu ku imaaday ama qofka wuxuu dareemayo ma iska boodi karno ma dhihi karno maadaama aad dhashay jirkaaga isbedelay daraadiisu kugu nacay because inta asla wada hadasheen inuu saas ku dhahay maada noo sheegin maho so waxaan ka dhigaynaa in maybe wiilka stress haayo maybe maadaama hadda uu aabo noqday oo cunug meesha kusoo saa'iday qarashka wuu sii badanayaa nimanka responsibility baa soo korto oo hadda reerka wuu sii weynaado markay nin inaag yihiin dadku reer maaha ani that's what I believe family ma tihiin markay oolaad imaato ay family noqdaa soo ma laga yaabaa responsibilitygaas imaatay inuu shaqada ku badsaday shaqada badsashadana ee keentay daal badan daalkana uu keenay damaciyo yaraaday ma laga yaabaa inuu jiran yahay ma ogin because mala sheekeysanin so waxaan ku dhihi lahaa intaa iskala kicisid baatiga ugu dambeeyay ama haddaa laacib tahay bijaamadii ugu khatarsaneed xiratid guriga hagaajisatid cunugtaadanaba siinaba heer ka dhigatid casho diyaarisid yaa bal cashada markuu cuno kadib dees adigu abaar haddii adiga aa abaartid oo sheekada ee sii soconin then waa iska aamusaysaa waa iska jiifanaysaa habeenkaas subaxdii quraaca karinaysaa haddana waa abaaraysaa ma shaqeynan tusaale again qadaa karinaysaa dan qadada markuu soo fadhiisto ma abaaraysid waxaa leesaa let's talk waa wada hadleyna ani adiga is everything okay my friend si kala gaceelah si yasma ku jirin si stress ku jirin si aynu ku jirin dagaal sidaa wax u tiraahdo waa baby xal waan ku abaaray xuduudaha waa soo xirtay saakana sidoo kale what's going on is everything all right are you okay saasaa dhehaysaa sida aad ninkaaga oola hadashid adaa taqaanide basaasaa oola hadlaysaa hadday jiro jirtane waxaa dhehe waa ii sheegi kartaa dhakhtaraa la tagaa dunida casriga noqotay laislama yaabaayo kugulama yaabaayo ma kugu deerinaayo everything is okay way partners in crime labadeena saan ma ku kala go-een waa dadaaleynaa haddii dabeecaddeeda ama aragtideeda tahayna ii sheeg aan ka wada hadalno waxaa jira aan ka wada hadalno saasaa ku dhihi lahaa talo kale aan ku sii ma aqaano maadaama qofkaana nolol ku darsatay oolaadna ee niga dhexeyso si fudud uqdad ha isku gelinin dadaal badan muuji dadaalkaas haddaa muujisid oo aa ka mira dhali weysana wada hadalkaa aadaysaa because wax waa taraagaray actionkii waa sameeyey actionkii miigula dhaqaaqoysa hadalkii hadal micno leh waa inaa isiisid oo macquul noqonayo oo maskaxda maaragtay galaayo qalbigan iyo qaboojinayo hadduu intaas kuu sameynaynin dan waxaa dhehaysaa waxbaa jiro wixii jiro cakaara imaanayaan ma laga yaabo xataa inuu isdhahooyo beebiyada ama bambarkeeda lacagteedii waxeeda markuu arkay inuu isdhahay ba-a oo halaha maa ilmaha ku baxaan mid labaad haddaad u imaado hamay xaaladahana jeexjeexaan bil aadan waa wuxuu ku fikiraya ma gara kartid waa inaa la hadishid maanta saa usoo socday therapist nuuc kalaa noqda mistraadeen marka waa kasaa abaayo anagoo isla wada jirno as a walaal gang dadaal muuji wada hadal xal u imaanaa insha allah qofkan kalete ila taliyo asagana nala soo wadaagay wiilkan waxaan u bixinaynaa cabdifataax I like that name cabdifataax wuxuu yiri anigi wiil baa saaxiibo ah muddo waxaan isnaqaanaa 2 sano ah eriyada uu degan yahay baan soo degay oo maalin buu intuu isoo waco wuxuu yiri maadaama isku area aan nahanay hadda waa isla hooyo karnaa wiigaan ma adiga ii imaatid oo ila jiifatid wiiga dambana anaa ku imaanayo
saa waqti isla qaadano oo FIFA aanu ciyaarno aniga waxaan jiraa 17 asagana 16 uu jiraa anaa sanadka weyn saaxiibaan nahna laakiin da'deena ma aragno wiilkii waan ka ogolaaday in aan habeen la hoydo gurigiisii baan tagay si fiican bay waalidkii ii soo dhaweeyeen waan u sheegay waalidkay dadkii ay yihiin labadeena waalidna waa isla hadleen adiga habeenkii waan hooyana waqti fiican aan qaadanay subaxdii hooyaday ayaa iga soo doontay waan ka soo tagay maalintii ku xigtay iskuulkaan aaday wax kasta okay ay ahaayeen maalintaas habeenkeedii hooyadiis baa waxay soo wacday hooyadeeda oo ay ku dhahayso wiilkaaga wareyso wax ma jiro uu isku soo hilmaamay hooyaday waxay tiri muxuu isku soo hilmaami karaa ma dhar uu leeyahay hebel buu ka soo qaatay ama kabo maamadii waxay tiri maya laakiin qaanadeeda lacag baa ii saarneed lacagtii baan la ahay meeshaasna inay saarneed waan hubaa hooyadeeda waxay tiri hebel baan soo weydiinayaa uma maleynayo hebel inuu yaqaano wax la qaado laakiin waa kugu soo warcelinayaa anoo barsada joogay hooyo ii wacday oo waxay ugu tiri saan baa la leeyahay maxaa dhacay wax ma soo qaadatay ayadoona hadalka igu kuleenin hooyo waxaan ku iri hooyo waxna ma soo qaadanin waxna ma arkin qol ee maamadaas leedahayna maana galin barsada iyo qolka wiilka bisaan u dhaxeeyay aniga abaay wax maana qaadanin ilaahayna wuu igu ogyahay hooyadeeda maamadii bay ku noqotay maamadii waxay tiri ilaa asagaa qaato waa in la ii baaraa qolkiisana waa inaa baartid wiilkaygaa ii sheegay labadooda inay ku heshiiyeen habeenkii inay isla soo wada seexdaan anigana la ii dhaco wiilkayga baa ii sheegay hooyadeeda waxay tiri ani cunugayga waan aaminsanahay qolkiisana ma baaraayo hadduu kaagaaga dad kaleeta intuu la tashto ee go-aan ku gaaraan in adiga lagu xado wiilkaaga waa inaad tarbiyeysatiday ku tiri telefoonkana way ku damisay ani asaga iskuulkii maalintii ku xigto indhaha waan iska fiiri weynay because anigana waa caraysnaa asagana waa u jeedaa in uu iga been abuurtay maxaa sameeyaa sidee aan ku caddeeyaa in aan aniga wax aana xadin uu asaga inabaayo ama hooyada walaa horta hooyada way wanaagsan tahay koodhe because haddii hadalkaaga ay aamintay haba yar intaasa kugu filan sababtoo hooyadaaba hadday ku aamintay adigana aa og tahay ilaahay weynoo waaxidaa uu u jeedaa wixii run ahna banaanka imaanayaan waxaa ku dhihi lahaa hadalka meeshaas ku gooy ha sii dabaraaraacin hooyo maa ku tiri baar waa mayo hooyo maa kugu soo noqotay oo wax ku tiri waa mayo hooyo way ku difaacday wayna ku aamintay adigana waa is og tahay waxaan ku dhihi lahaa bis kaas saaxiibtinimadiisa laalaab meel iska dhig بالآدم أوبا هنتا أنا قنع سمات مجرته هويدا وقنع سنتهاي وركاية آمنتي because وقتها الشخصية دا آتاي يقفك إسو كريسي أديقنا واس وقتها إلهي وينو واحدانه وكوجي دا إنا رون شيغيسي إنا بين شيغيسي سو عدو قنع سن سيحو هويداس مارتي والبهار إي كركر إي ونحنون سوايا because أيضا كده دا hadduu qof kale la tashanayo leeyahay hooyaday ahan soo xadno ayada dhibqato na iyo hooyada jawaab fiican ay siisay daayla martan maba ahaba tan waxa waaye halkeeday wadatay because hooyada legend waaye because waxay tiri hadduu wiilkaaga dad kale la soo shirkoobayo dhaa hooyaday cadno adaa dhib qabto marka ani waxaan ku dhihi lahaa habeer ha sii raaraacin halka warkaas kusoo qabooji ilaahay maaragtay wanaagaaga ha kuu sii wado markasta ahaa qof ilaahay ka baqo xooladadu iska ilaaliyo xaaraanta iska ilaaliyo waxna qaadin qof waxa la yiraahdo hadduu hal mar wax qaado qaadka saas uu baranaya ma fahamtay saaxiib saasaana uma baahnid ma fahamtay ka gaabso wuxuu indhaha kaaga fiiri waayo qabaa because hadduu xataa asaga daacad yahay intuu ku imaado ku dhila alla sorry saasaa dhacday kan ani ma qaadanin adi haddaa qaadanin ma ogi camal ma fahamtay marka hadduuba indhaha kaa fiirinaynin asaa dhib qabee hore ugu soco taladiina fadlan kusoo darsada waa kaasa waa baradho iyo hilib baradho iyo hilib maa lagu qasaari karaa I don't think so anyways qaando weynaan ii qaadaa because waan jeclahay abowe abaayo bisinka muu qabat good by the way aaryada aniga igama socotayaa kursiga waaye ya saacadaani faarka ma bixi karee bismillah No, that's what I'm talking about. Wow.
سامع أوقع أنا مهركو أسكو يري مستر هذا أشغل تنابو طبعا مش هيكيكا تنتين لما سيكا هم حاسين يا 20 waxaan soo dhacan taqaanaa shalay waxaan saaray video shiiqad ee leedahay naagta ninkeeda hadday ku adkayso ama intuu sasabay is adkayso ama dabeecadeeda ay qaloosan tahay uu sasabay is adkayso jeedal ha lagu garaaco bir lasoo bax suunka gadaashiisa ku garaac saas ma tiroota on jeedal iyo ule sheegtay in naagta la tumo aniga horta Cabdinaasir hadduu isku dayo inuu tumo 100 kiilo iska celinaa waa ku fadhiisanaa neefta ku celinaa laakiin aniga dhankaan raaliye kana ahaana cunto fiican I think that's what I'm good at waxaan qofka u keeno nin iska daayay abaayada u keena xataa waa ijilcay way talking about this is talent meelaha kale ku xumaado aan indhaha taago jadalka markuu la soo baxaa bacsi asagana ku fadhiisto laakiin maybe this is what's gonna take me to Jannah. ولا أنتم كفرحة تمام يفرح جلس سناب شات حأكويا أشرف على نور أشرف كبت هذا أني مقش سبتي يوجن حتى هاي أقول كان سناب كي سبكوك للجرايو مال واو جوجا ما نتست مقايد إيو تماشاب وكجرها لعتاس ولا لو واحد يسي فضلا بليز وشير جرايو ودرا سان حق معها سكين كير إيو هولي إيو ديارة إيو كي مقايدي ودمي عنقا ودمي he's always outside marka hadda waa iska daayay stories inaan ku kala garay aw notification ka ishin jiray hadda waa ashaf ay soo baxay mut awal waa fiiri jiray hadda masaar isheed ilaaha ka badbaadiyo anin kursigan kama waqacaba